السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال ومكان وشؤون الحياة. إليه سبحانه وتعالى أيام هذا بفضل ومنه وإحسانه. الله سأقول لك شو قال لنا أول آخر بني آدم نقدر يسأل كل قرنا محاسحا محقل ذن محاوس وجوكتي مرق مفوري كرتا مش منافق بعتهاي مرق مفوري كرتا مش منافق بعتهاي تدبر تنجير تلاحم دلكي وكالات كتوم أو تاكو قدو صدق تدبر تنجير حسن شيخ محمود عبد حاشي ninka la leeyahay aadan madoobe ayaa waxay u fikireen inay 70 jir kale oo deegaan Soomaaliyeed maamula inay dulmiyaan waxay noo jelayaan shalay iyo maantay nin firim bilayra ayaa heavy duty noqday oo feer buuraday waxa dhulka ku dhacay boolis maxkamadda abgaal ee muqdisho ku taala waxay soo qaban weysay ninkii dilay sargaalkii Saleebaan ninkii dilay wiilka cayr oo ku dilay kaxda ninkii dilay hadii Ilaahay ku ruuy wiilka Saleebaan oo asla kale meesha lagu dilay waxay soo qaban weysay macallinkii baad cad ninkii dilay waxay soo qaban weysay konton qof oo abgaala oo jooga meesha la dhigi jiray gubadley iyo jawhar ayay soo qaban weysay maxkamaddii badbaado qaran maxkamadii badbaadada maxamed siyaad barre 70 jir buu ahaa tala xun dawladii dheehi baa laga qaaday dhadhankii baa laga qaaday nuxurkii baa laga qaaday waa la macno tiray sida awgeed waxaan rabaa inaan dhaho walaalayaal waxaan rabaa inaan dhaho hadii Ilaahay ku roon yahay xasan sheekh maxamuud dawladnimadii Soomaaliyeed asaga iyo saddex oday oo qawaara ayaa nuxur tiray dhadhan tiray qiimo tiray kana saaray Soomaalinimadii iyo wixii isku soo dhawaashaha iyo wixii talaha waxaan rabaa inaan dhaho firimbi xasan sheekh maxamuud wuxuu u dharsiibtay kumanaan kun oo wiil oo Soomaaliya inay isku dhintaan firimbi baa feergamay waxa u tagay diyaano dufla faranba ku xiray abgaala qeyl shay alla dawladda askari baa la feeray inna lillahi sanadkan joogna xagee joogna kurastu tii isla dhacay maaha sawtii dhagxanta la isku dhufanay maaha sawtii dadka hadii Ilaahay ku reeyo fiiri war aqliga ma isaga ciyaarina war xagee joogna war dal 70 jiradii ay hadii Ilaahay ku reeyo wala saqay gadoon dheelayaan dal 70 jiradii ay tumanayaan oo boodayaan oo ciyaarayaan oo uga fayaan dal 70 jiradii ay ayaku ismaagayaan war 70 jir ayaan waxaan ka dhicinayaa 70 jir kale oo ayaka ka qiimo badan oo waqti dalkan galiyay oo ka run badan oo gar kale waxa dhumay balansigii dalkan waxa meesha ka baxay markaas waxaan leeyahay askari baa la feeray dalka Soomaaliyeed askariya inta la feera faleen bal lagu xiray waa waray goormaan noqonay hadii Ilaahay ku roon yahay reer Yurubka noocaas goormeen noqonay dufle maxaa ku takhasustay calool xanuunka iyo gastrikada kadibna faleen baa lagu xiray ajiib ilaahuna gaarsiin meel qofka Soomaaliyeed marka feer lagu dhufto faleen bal la isku xirayo la jeefiyana banaan la joojiyana banaan konton qof oo maxkam oo abgaal ay dileen ayaa waxay joogan gubadley iyo hadii Ilaahay ku reeyo jawhar hal qof laga ma soo qaban Axmed Madoobe baa la soo qabanaya alla ogaadeen nasiib xuma waxaan rabaa marka hore inaan mid dhaho ogaadeen waligood ra'iisul wasaare ma noqdeen maya yaa ka dhigay Axmed Madoobe markii qalbi dhagax la xiray yaa Itoobiya ugu tagay Axmed Madoobe yaa sababay ogaadeen inay kismaayo si fiican gacanta ugu hayaan Axmed Madoobe yaa sababay in ogaadeen Jubbaland markaas ay madax ka noqdaan Axmed Madoobe yaa sababay in ogaadeen Soomaaliya baabul ku noqdaan Axmed Madoobe ogaadeen soo xira Ilaahay baan ku dhaartay taariikhda nin Axmed Madoobe habarkii soo marin hatta General Aidid wa urday General Aidid qaba hal raasal rasuula wiil dhaqan futa dhaqan faras dhaqan dhul dhaqan waxba looga ma tigin
وأردي قاري أسألني إلى عيدين الحريص والله بأن أرك حسن دهر يمت راس الرسول ما ننتين كورنيليا كلو كذا بلاي مدو قبابع قرعيل كذا عشان قرعيل وسم الرب كسماي وناكن ورنيك أوجادين كسماي كاني وجيجا كاني ورئيس الوزراء كاني وقلب نجح كاني حديث هاكي اللي هلا دونه أو إليهن كوا دمير هذا بهاينك يقولها برد جديرة هدي مقالة مقدسو كو قبسطو وحير حفلة يا مهان حفلة لغو ما غبا كرو يا مهان قلمدو لما ديه كرو ورئيل ماذا خيالو ورانو وحان كبغيا قف قبا إلا واي أحمدو وحا أتاقريا قف قبا ومارك فركار إلا واي كبغيا ها وحل رجل لغو ما هاني دميرها وحل دميرو نيهو أروس بقشت وانا عدي إلهي كوريو هراتين إبرا لغاقا ديجي الكي واكو دعين وردمير maxaa ku talaa ma aroos gashido xilaha maxaa kugu dhibay war wuxuu weyniyay aniga wax weyn ma hayaan laakiin hal dhiban ka baqaya in dameer adduunka laga waayaan ka baqaya isirka dameer inuu go'aan ka baqaya sida awgeed adduunka inta dameer la'aan ka dhici lahayd waa u samaraya wax kasta haraatida igu dhacaysa ilkaha iga jabaya anoo xurtaysan rafaadka waxa soo dhan wuxuu yiri ilma firka dameer inuu go'aan ka baqaya firka dameer suusa firka dameer u go'in هدي إلهي كوري وحن ربعنا إلى هذا وصبريا وحن كبقيا عد صوماليا ما يديه كرت إلا هو يقور وإبسد قلبه وحراشتي وأنا مقع تري وأنا غاية تري وأنا قيمة تري كوي مقدسجي وما ثلاثة حنبليو قد دور شرح حنبليو عجيب والنفس دي سوء هرليا ومد مبد بادينيو وحن كبقيا قف صوماليا ما يفرق إلا هو waxaan garab taaganahay Firimbi kornel balka lidii xilba Firimbi shalay waa qumana indhihi hawiyo ahaa shalay waa qumana aray Firimbi yaw yeershay aray Firimbi yaw yeershay maanta waxuu yahay maanta feerow gamay video tuwaaye alla ninbuu ku dhuftay fayanbada ina diyaana soo booqday dufla kor istaagay madaxweynaha ka qiirooday yaa waxaas loo sheegaa wariyaa cali maygaag waa bareelis wariyaa daahir dhagoole waa boolis dabdamiska ku dishay midna waa ka dafteen war ilmihii booliska ayaa dhulkii ka qaadateen war dadkii aad sargaal qurux badan Saleemaan ku disheen meeshii la dhihi jiray airportka agtiisa hal nin Soomaaliland qaban Axmed Madoobe waxba kaama dilin doorashadii ku soo bixi jiray ku soo baxay tii shalay ku qorxoonada ku soo baxay kumanaan kun oo wiilad is hor dhigtay haddaad Soomaaliya isku baabi'inaysaa waxaan ya taabad waxaan rabaa marka inaan Axmed Madoobe mid dhaho ogaadeenna mid dhaho nimankii ra'iisul wasaaraha la sii jiro ma jarteen mid aan dhaho habargidan aan la hadlo saaka ma taalo maxaa yeelay qadkeena waa ka dhacnay galmudug farahan ka ridnay waanu kor baqtiday laakiin waxaan diidanahay waxa haddii Soomaaliya baalansigooda oo dhumo doqono ii talinaysay meel dheer in laga goobo intii tagi lahayd meel laga celin karo oo walba lagu kala joogi karo in la joogo oo maxaa ula jeedaa